السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح بدن بaa joogto madax dhaqameed iyo madax xukuumadeed iyo madax qaran iyo dhammaantiin waa salaamantii waxaan aad iyo aad soo weynaynaa waftiga ka yimid gobolada Sanaag Bari ee madax dhaqameedka waxaan u soo dhaweynaynaa qaran ahaan waa qayb ka mid ah Soomaaliland waxay u baahan tahay taladiina maskaxdiina waxtarkiina baayac mushtarkiina aqoontiina waayo deegaanka ka timaadeen Soomaalida waa ka tilmaamay tala aqoon oo taa sheegaya idinkoo isku duwana ku timaadeen Soomaali waa idinka marag waxaa idinka maragay dad dhowrsoon duuduub lahayn oo waxaa telefishinada waliba qoladeena oo timaadeen Hargeysa Soodahda iyo inanka iyo inanta iyo odaygu halkaas soo fadhana ay tabayaan wala ma arag nin deegaankaas oo meeshaas uga hadlaya ama qof wara ka hadlaysa iyada sababta insha Allah waa duruusan ka baran doono waxaan soo nimid Soomaaliland wada dhisno waxaan isugu nimid oo inoo baahanahay in Soomaaliland wada dhisno maanta qof kasta oo Soomaaliyeed meel joogaba oo Soomaaliya ku hadlaa ma qabweyna madaxiisu u foorara qiimihii Soomaalidu meel aad loo tusay maraya guud ahaanba taasina waxay ku timid talaxumada guud ahaan dagaaladu way dhacaan dalalka dhibaato way ka dhacdaa dadku wuu isdilaa waa laga soo kabtaa dagaalada waxa la yiraahdaa talada wanaagsan iyo aqoonta wanaagsan ee horumarka sanacada lagu bartaa waa dhibaato birtu markay cadaato in la gubo sidii la doonayay noqota marka waxa la bini'aadam markuu dhibaato maro tala toosan buu hela waxa tusaale inoogu fulan wadanka yar Rwanda la yiraahdo ee dadka yar ee naga aqoonta yaraa ee badiya baritoona lahayn ee malyuunka iska dilay ee maanta adduunka oo dhan ma jeeranayo ee inaguna aynu ma jeeranayno waxayna tusaysaa inaynu dadka ka duwanahay oo inaan ka soo kaban karin khilaaf ka dhaca 30 sanadood dad waxba kala garbixi waada oo in yaraa meel ku oodaato oo intii meel joogtay meeshada ku jabto inagu ma lahayn waxa la yiraahdaa qolada Soomaaliland joogta waxay doonayaan dawladda oo qolo leedahay dadka ku ayagu una ku qabtaan intii ka noqdaan warsta maaha markii hore Soomaali midnadeedii iyo la labihii hal midoob iyo xorriyadii halkan bay ka bilaabtay Soomaaliland oo Suudaan kii ka sii horreeyay isticmaal dirkaana Soomaaliland ka bilaabmay dayma ka waa lagu murmaya taariikhiya daraawiishtii Ismaaciil Bare wareen Soomaaliland garan maayo wax iska wareejiyay taariikhda tareexna waa tan Soomaaliland laga raray maayo khilaafaadka in haysta waxa weeye in sayhin u dirso anagu waxaan soo jeedinay markay dawladii midnimada Soomaaliland duntay oo Soomaaliland safkara weyday oo dawladii ay duntay waxaan ku dhisi karnaa laba lugood bay ku taagnay qoladii Talyaaniga gumaysan jiray iyo qoladii Ingiriiska gumaysan jiray qolo waliba gudaheeda waxa soo dhisto oo inagu oo labadii dawladood aan soo nimaado Soomaaliland aan isu dhamayna dhismayso Soomaaliland aan wax wada lahayn oo kala raali ahayna meel gaari mayso marka waxa la inooga baahan yahay in Soomaaliland aan wada dhisno kuwii kale u gurmano maalintii 390kii shirkii Addis Ababa la isugu tagay ee Maxamed Xaji Raaciga loo qaaday heestay ahayd ee Soomaaliya toos isku tirsada wuxuu taa maanta halkeedu way gudhay dib ma asaasnaa ku dhinaciga wartaas way gudhay maanta la isku tirsan maayo waa la sii kala tagayaa tala ma keena dib oo iyo soo xisoo doonta waqtigeeda gaar doonto waxaan u sheegaynaa maanta Soomaali waxay u baahan tahay iyo Soomaalida burburtayba inay laba qaran isu dhisto maanta waxa la majeerinayaa Soomaaliland nabad u bay haysaa iyo ismad gelisay intii la socotayna aynu kala wad galo halka qayrkeen jooga halka jooga waan arkaynaa marka waxaan ku talinayaa oo leeyahay talo fariin ay gaarsan walaaladii bariga joogay iyo kuwa ka sii bariya Soomaalida hore Puntland ba wararta waxaan wax ku maray waa nabad colaad waxa ku helmeen laba waxay wax ku noqonaa inaga oo wada shaqeysana oo dalka kala dagaalana faqriga baacimsulka isweeyaarina aqoonta isku korsana xadka dawlad Yurub oo dhan waa xadad haddana way wada shaqeysaa wada nool Afrika waa ku taliya fardooyin xadkii Ingiriiska ku joogta xadkii gumaysiga maxaa loogu joojiyay waxa la yiri intii ay qolo wada gumaysanaysaa iyaga isku afa iyaga dawladda si wada maamula
iyagaa hab wada dhisan markaa qolowli halkeeda ku dhisanto beriga ay gaadhaan afrikeen ustagtaha la gaadhay inagu waynu ka boodnay waynu sugaynay ilaa iyo inqilaab ka dhacaya waxaa socotay guddidii midaynta manaahijta guddidii midaynta shaqaalaha guddidii midaynta shuruucaha ee soomaalidu aadan cadda ka tegey ee cabdirashiid wade baa socotay markay tii dambe inqilaabka soo gaadhay iyadoo oon la isla meel dhigin oo saddex afaynu ku hadla talyaani iyo ingiriis iyo soomaali oo aan ciidamadii saani loo midaynin oo aan maamulkii la midana labada karaanin midba wax garaaco khilaafkii ka dhashay wataa ku duntay maantana isku qasab way midoobaysaa dad kale oo caqli ma haysaan war inta talyaanigana gaar ha loo dhiso intana gaar ha loo dhiso oo tanaa dhadhow la moodaa iminka inay waadaantu ka soo baxaysa ceelkii la halala jiiyo ta kalena ha u gurmataan wayaan anagu wax ka badan ma wado colaadu kuma socdo nin baan ku nabad baan doonayaa odayaasha Soomaaliyeed wuxuu yiri warniyow waa afkaaga isma laha action-kaaga ciidana hoostaada iga soo riixaysa haddana waxaad nabadee war ciidanku dee amnigu qabanaya meesha waa fawda ciidan ma joogo dadka isma xukumi karo ninkan intiina ma qaban karo waxa kale ee inoo cadow guud ahaan ma qaban kare dhexdeena cararaya markaa haddaan ciidan iyo amni keenin dee meesha dowladda dhis kari maayo waxaan leenahay walaalayaal fariintii waa timaadeen waanu idin wacnay waxaanu idin wacnay Soomaali saasay u soo saabay ugu muuqataa halkaas ay ka dhowdahay baanu leenahay waxaan doonayaa in Soomaaliya wada dhismo oo aad dadka aynu u simannahay arrinkeeda adduunkeeda iyo taladeedaba adoonidii inuu dadku halkan iska aamino maskaxda oo aan shaki la keenin wuxuu jeediyay reer maxay doonayeen halkan doorasho ka dhacda doorashada maydaan geli jirin markaa baarlamaankii cod baa lagu yimid dee codna cidin kala badnaa haddii xataa sida Soomaaliya haddii la soo qiyaaso oo reer la soo qiyaaso dee cidin kala badnaa marka Soomaalida keeno dalla cidin kaba weyna haddaad doorashadii diideen dee haddii madaxweyne ku-xigeen 100 kilomitir boorama iyo Hargeysa codkooda saareen ilaa waan u badannahay dee hadda idinkaa beeriyo ogaada labada way heli karaan haydeen ogaada laas caanood iyo baran madaxweyne ku-xigeenba way heli karaan ogaada hadda dagaalka washaa fartiina ay ku xirantay iyo nabadda gacantii naas iyo nabadda ay ku xirantay cid ay u go'an tahay ma joogo halkan riyaala ka ah 8 sanadood waayo maxaa u diiday inuu nine oo macallinkayga baseballka noo bilaabay hawl ka noqdo dee idinkaa daayaco bixi waayey marka waxa weeye Soomaalidu waa ka gudubtaa waana dhab wali way si hadhay qabyaaladu waa idaacadda baa TV ka taana wareebala laakiin waxaas waa wax si dhamaanaya waa qof meel u qabsada waayey dawladnimo aynu soo dhisnaabaan idinku yeedho waxaynu haynoo banaanka dhexda inoo yaalo xoog iyo xoolaaynu ka dhignay war adigu cun iyo walaalo adaale baynu ka dhignay ayaan maanta ku hadal waxaa noo sheegteen in tiidi ay ka jirto abaar ba'an biyo dhaamis dhibaatooyin waanu dadaalno ilaa xalay waxaan lahay war maxaynu biyo dhaamis iyo gurmad iyo arrin imika degdega ka talagalnaa ninkii wuxuu yidhi hoona waa iganta hagarna waa iga walla maanta nin rag waxay kala hadhayaa ma nihin dalkan aad soo marteen eed majeerateen ee galbeedka ah burcaba ka soo bilowday lacagta lagu horumariyey waxbarashada caafimaadka wadooyinka waaweyn qaarkood waxay u badan yihiin taynagu taageeraan caalamku ee la soo mariyay hay-adaha dalku wuxuu kala horumaray siduu nabadda ugu kala horreeyay nabadda mar baa jirta hay-aduhu ay awda loo qula degi jireen boorama qula ay deganaayeen oo la hargeysa ma jirin mar baa jirta ay hargeysa soo gaaray dhowr sano ka bacdi sidaasi kuba meeshii nabad noqota ayaa dadkuna xoolahoodii dadkooda ku aaminaya markaa waxaynu u baahannahay in labada gacmood nabadda isku geyno maamula dhiso nabadgelyana abuuro annagu nabadgelyada ciidan idinku filan oo kiina tababara oo ay ka mid noqdaan waa diyaar waanu idin dhow yahay oo dadka kala badbaadiya oo cadow ka badbaadiya maamulka inaanu dhisno markaynu isla garannana oo ammaan uu helo bara saabka gurigiisii joogo gaarigiisa laga dhacaya dee soo xumaamaya laga adkay xabaal buuxinayne taana waa ina dhisaynaa idinkana waxaa laga rabaa dowladii hoose aan dhistaan oo cashuurtii bixisaan oo inta dowladaha hoose ku filaataan deegaan waliba isagaa dowladda hoose dhista isagaa wixii uu kari waayay mooy isagaa dhaqaala abuura
وادت كان سومالي هذا يتكسي الرياشي وحي عشرة اسكا وريان ما وحنا درتين كسعودة وحي أي عالم كانوا عاويان وحنا دي بلغ هذا هنا نمبر 1 كو هنا نسينه وأنا قلبت كوالا داتين جوجين لكن إذا كان واحد يقولون ده كا عيدا كاي هذا على صدر هنا أمان خلاص لو وين مساسو تقول ده وين متفاهم مدنا ينوغن وأنا قفرين بوتلاند ينتكش شيء سوا iyo su'aalo nabad baan u haynaa waxaan doonaynaa Soomaaliya wixii loo jeedo Talyaaniga xad waxaanu ka leenahay waa inta Puntland inta inuu nabad ku wada noolaano oo wada baac mushtareyno oo si wacan oo walaaltinimo u dhaqanno oo xadkuna ka inoo dhaxeeyo yahay baan daalagu diyaar u nahay billaahi calaykum baro fiirsada imaaraadka waa toddoba imaaradood waxaad maraysaa meel maxaa la yiraahdaa baashan daa'irad saarka gaaru koreeyo دين عالم بدو عشور تقاضى دين عالم بدو عشور تقاضى وانا ولا لو يدوريه وانا كلا حد محايد ود ذي إلى نجي يبوت أساس كله ولا إنه كل يوم سواي سنة لا وراني هو كنا وكيكاي أنا جنا بدو أنا جوان إذا ما ده هالكاتني هدان عيدا كاس شوفين لاس أنا دي صور نبدو اسمه سكوناتين كاي بتجينا قبل كا أبغاش كتير أي من بتجلس وتشوفه هادو واحد الدرهم ده القاف ده كوسبايا أنا جاوبه askarta halka joogta haddaanay discipline iyo waayeen iyo walaaltino iyo dadqad hadii laga waayo anaga xumaanta wada anaga aan ciidanka ugu hoggaansaneen waan ku rasoonahay horna waa lagu tijaabiyay nabadgelyada dadka sugayaan inay dadkana kala ilaaliyaan cadowna kala ilaaliyaan ma aha codurnaada iskuma soo dhigi karayno xool isku muqul karno diinta islaamka baa leeyahay waa doorasho baa qasan ikhtiyariya qad tabayyana rushdu min al-haq marka waxaan leeyahay فرنتها أنا جالسية أنت أصلاً أنا فرينا وأنا سولو ويننا ذلكنا وحنا وحنا ميسك سوني جاي الله وحنا توتين وار وأنا مغريين بوس السياسية يا كتوتين يعني المرة هو مغريين لا يابنا ما ينال هذا خلاف بيننا هروب بوسن هروب بالله من خلافنا هذا تمادينا أودينا قبل مريسان أنا جبري ميسان سؤالات كبري ميسان ذلك وحكولي دين أودينا عدكينا عدودينا أبوتينا حرينا قبل مريسان ما هو حريق الفتيل آدي آدي وما تتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته